تيك جورسدي وابتاس لي قدلي صمت لسي هذا waxay ka dhacday burco waa la wada burco dhan waa wada ogtaay inta deganaa sunalsiinaad idoo 9 bilood habeen ma ahana bil ay u dhineen xirka ugu dhineen sunalsi ti waxaan oo wanaagsan aqyaarta wada inaga daawanaysa idilkiinba halka aad nagala socotaan waa Ruusocod Media meel walba aad joogtaan waxaan dileynaa waqtiga idin wacnaado dhammaantiin muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo subhana Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuure leedahay ilaahay inuu saalo ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeyo inta awlaadoonkana ilaahay awlaad baarihaasi inta gurdoonkana guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee bahasi iyo qof walba umuuruhu leeyahay ilaahay uu saalo qof walba leegto qabta waxa rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa in jannatul firdaws ala ilaahay uu ku abaalmariyaa ayadii waalidkeedaba ilaahayna dambigooda uu dhaafaa caruurtan ilaahay uu barakeeyaa dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo iska daaya xaasinimada xaasidka ma liibaano alxaasid laa yaflax dhammaantiinba muuqaalka leegta ku qabto waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan ka wada baryeynaa inuu ilaahay faraj qeyr qab ilaahay uu noo furo dhammaantiinba umuuraha leenahay ilaahay inuu noo saaro Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka wangalinaa cuduraadka adduunka wareeriyay inuu ilaahay naga xijaabo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa ilaahay wadaan magantaada ku jirnaa dhammaantiinba ilaahuna amaanso waxaan eegi doonnaa warbixin aad u qiiro badan taas oo ku dhacday aabba Soomaaliyeed oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho laguna fuquuqay Somaliland asoo isla markaasi laga dilay xaaskiisa uur lahayd muddo 9 biloodna uurkeedu uu ahaa sabab la xiriira shaqooyinka uu qabtay iyo sidoo kale qabiilku uu ka soo jeedo waxaana arintan oo arin si weyn laga naxaya waxa ay ka dhacday magaalada Burco ee Somaliland waxaana arintaasi lagu sameeyay ninka odiga ee lagu magacaabo Canshuur Shiraar oo aabba da'a isla markaana haysta 8 caruur ah oo 6 kamid ah ay tahay gabdho labana ay tahay wiilal waxaana uu sheegayaa aabba Canshuur in xaaskiisa lagu dilay magaalada Burco sabab la xiriira shaqooyinka uu qabto in kabaha uu talo isla markaana birta uu ka shaqeysto birta uu sameeyo waxaana taas ay keentay in sidoo kale lagu fuquuqo qabiilka uu ka soo jeedo waxaana arintaasi uu ku mutaystay in la dilo xaaskiisii u dhashay 8 caruur xilli ay lahayd uur isla markaana ay ku jirtay waqtiga 9 bilood ee dhalmada waxaana arintaasi ay ka dhacday magaalada Burco ee Somaliland waxaana taasi ay sababtay in aabba Canshuur uu ka soo haajiro magaalada Burco una soo haajiro magaalada Muqdisho oo hadda uu ka ganacsado aabbahan da'da ee dhibaatada loo geystay Canshuur Shiraar oo warbaahinta Universal la hadlay ayaa sheegay in dhibaatadan ay tahay dhibaato joogto ah oo lagu hayo dadka dadka la fuquuqa ee ku sugan Somaliland taas oo uu sheegay in aysan xeer ahayn waxaana arintan ay tahay mid aan qabin sidoo kale shariicada islaamka qofka geystana uu u gafayo shariicada islaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala in dadka uu simay aysan jirin cid kale ka sareysa aabba Canshuur ayaa xilligu uu hadlayay waxa ka muuqatay caro iyo waliba calool xumo taas oo ku aadan dhibaatadii uu kala kulmay magaalada Burco ee Somaliland iyo waliba dhibaatada loo geystay Canshuur Shiraar wuxuu sheegay in xaaskiisa xilli uur ay lahayd isla markaana ay ku jirtay muddada 9 bilood in lagu dilay magaalada Burco isla markaana la sumeeyay waxaana uu yiri aabba Canshuur Shiraar oo hadlayay xaaskeyga oo 9 bilood ayaa la dilay xilli sun la siiyay waxaana waqtigaasi ay ku jirtay xilliga dhalmada waxaana uu sheegay in arintaasi ay ku naqatay nabar iyo urtukaala aan ka go'in waligiis waxaana arintaas oo idin loo sameeyay buu yiri shaqada aan haye ee ku aadan in birta aan ka ganacsaday iyo sidoo kale kabaha taas oo uu sheegay in aan ku mutaystay in lagu dilay reerka aan ka soo jeedo arinta kale dhibaatada ay iga soo waday Burco waxay tahay buu yiri in xaaskeyga muddo kadib markii la dilay muddo fog kadib inaan isku dayay wiilan adeer u ahay inaan u doono gabadha markaan doonay kadibna waxay ii sheegeen qoyskii gabadha aan ka doonay in hadda aan soo doontay malakamoodkii ii dili lahaa isla markaana ay dilayaan asiga iyo wiilka adeerku u yahay taas oo keentay buu yiri aabba Canshuur Shiraar in si dhaqso aan kaga soo cararo magaalada Burco ee Somaliland isla markaana aan imaado magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay asoo si hadlayay Canshuur in dhibaatadaasi ay ahayd mid si weyn naxdin ugu abuurtay kadib markii xaaskiisa kol hore la sumeeyay xilli ay ku jirtay muddo 9 bilood isla markaana ay ahayd dhalmo ayna dhali rabtay cunugay siday wuxuuna uu sheegay aabbahan oo hadlayay isla markaana xilligaasi ilmo ay ka muuqatay wajigiisa in dhibaatadan ay tahay mid joogto ah oo lagu hayo dadka la fuquuqo wuxuuna sidoo kale tilmaamay in wiilkii adeerku uu ahay asigaba ay soo aadeen magaalada Muqdisho asoo ka baqaya in la dilo isla markaana halkaasi ay ka furteen goob ganacsi waxaana uu sheegay sidoo kale Canshuur Shiraar asoo hadalkiisa
sii wataa in hadda wiilkiisa gabar uu u guuriyey oo magaalada muqdisho gabar uu ugu guuriyey wuxuu xilligan uu ku nool yahay mid ka mid ah xirooyinka barakacayaasha ee magaalada caasimadda waa Soomaaliya ee Muqdisho halkaasi oo canshuur shiraar uu kaga ganacsado ama uu ku maareeyo qoyskiisa uu ku maareeyo kabaha la tolay sidoo kale birta la tumo wuxuuna tilmaamay ama ugu baaqay Soomaalida in la joojiyo fuquuqa qofka lagu fuquuqayo nasibadiisa iyo sidoo kale shaqooyinka uu hayo wuxuu yiri shaqadan aan hayo ee ku aadan tolista kabaha iyo sameynta kabaha iyo sidoo kale tumista biraha in ay tahay shaqo muhiim u ah adduunka isla markaana Soomaalida ay u yaqaanin qofka shaqooyinkan qabta in uu yahay qof qabiilkiisa la liido ama aan laga guursanin isla markaana uusan guursanin gabar kale oo reer kale ah taas oo uu tilmaamay inaysan ku habooneen shariicada islaamka iyo dhaqanka soo jireenka ee Soomaalida canshuur shiraar wuxuu ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan wuxuuna tilmaamay in xaq Ilaahay laga siman yahay labada adoon ay yihiin laba siman isla markaana aysan jirin cid ka sareysa xaq Ilaahay maalinta la aado yoomul aakhira laakiin arintaasi ay tahay dhaqan ay sameysteen Soomaalida isla markaana dambi weyn uu xabsanayo qofka waxaasi ku dhaqmayo wadaadada Soomaaliyeed ayaa dhowr mar ka digay in la joojiyo faquuqa iyo naceebka ku aadan xagga qabiilka in qof loogu diido gabar nasabiyada uu ka soo jeeday iyo waliba reerka uu ku abtirsanayo taas oo aan qabin shariicada islaamka kala soo horjeeda shariicada islaamka Soomaalida waa boqol muslim haddana muslimnimadooda waxaad u moodaa mararka qaar inay ka tahay afka maxaa yeelay waxaad arkaysaa qof dhan oo muslima oo dhahaya ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam oo haddana lagu fuquuqayo nasabiyada ama reerka uu ku abtirsanayo waxaana muslimka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayado badan oo Quraanka Kariimka uu ku soo dejiyay ama uu Nabi Maxamed uu ku soo dejiyay uu ku sheegay in dadka muslimiinta ay yihiin hal gacan walaal innamal mu'minuuna iqwa ayado kale badan taas oo la doonayo in dadka Soomaalida ay u hoggaansamaan dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday Aaba Canshuur ee ka dhacday Burco Somaliland ma jirin wax laga qabtay buu yiri xilligii xaaskayga la dilay isla markaana uurka ay lahayd ay ku dhimatay lana sumeeyay wuxuuna tilmaamay in arintaasi uu geeyay meel badan aysan jirinna wax loo qabtay taas oo ku qasabtay aakhirkii inuu ka soo haajiro Somaliland una soo haajiro magaalada caasimadda waa Soomaaliya ee Muqdisho wuxuuna sheegay in aysan ahayn meesha kaliya ay arintaasi ka jirto Somaliland laakiin ay tahay meel badan oo Soomaaliya ka tirsan in dhibaatadu ay ka jirto ayna tahay in dhibaatadaasi la joojiyo Allah subhanahu wa ta'ala laga baqo waa sida uu yiri Aaba Canshuur shiraar oo si hadlay wuxuu tilmaamay hadda in noloshiisa ay tahay mid caadi ah isla markaana nolosha ilmihiisa uu biisho uuna ku biisho shaqooyinka uu bulshada u hayo sameynta kabaha tolista kabaha iyo sidoo kale sameynta biraha waxaana uu sheegay in shaqadan ay tahay mid uu ku soo barbaaray uuna sii wadi doono isla markaana uusan joojin doonin wuxuuna ugu sidoo kale uu ku celceliyay xilligu uu hadlayay in Soomaalida ay iska dhaafto faquuqana laga joogo aan ficneenna dadka inay isku faquuqaan ma aha oo kaliya waxa la faquuqay Aaba Canshuur shiraar waxa jira dad badan oo arintaasi la ciiloon isla markaana dhibaatooyin dil dhaawac iyo barkacin loo geystay oo aamusan oo gudaha Soomaaliya ka dhacday isla markaana lagu fuquuqay oo kaliya reerka ay ka soo jeedaan iyo sidoo kale shaqada ay hayaan waxaana arintaas inta badan sameeyay kuwa isku arka in dadka inta kale ay ka sareeyaan ama ay ka qabiil fiican yihiin waxay soo oogeen in maalinta yoomul aakhiro qofka soo dharmaran oo sidii hooyadiisa ay ku dhashay in Ilaahay hortiisa uu istaagi doono su'aalo badan la weydiin doono waana dambi weyn qofka inaad ku fuquuqdid nasabiyada uu ku abtirsanayo aan isku aragtid in adiga dadka kale ka sareysid waxaan dhamaanteen aan cod dheer aan ku leenahay Soomaalida waa inay ka foojignaataa inay joojisaa faquuqa loo geysanayo qabiilada ama qofka lagu fuquuqayo nasabiyadiisa ama shaqada uu qabto dhamaantiin ba Ilaahay aadin xifdi Ilaahay umuraha leedina asalu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umurul muslimina kullaha sahla Ilaahay dhamaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga kaalmadaada Ilaahay dhamaanteen ba inoo gargaar Ilaahay waxaan ka maangalaynaa kuwa sharta dhibaatada iyo lugooyada inoo damacsan wixii shara oo dhibaatada lugooyaha inoo maleegaan Ilaahay ku celi ya Allah Ilaahay dhamaanteen waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga kaalmadaada iyo naxariistaada ya Allah Ilaahay dhamaanteen waxaan ka baryeynaa umuraha leenahay Ilaahay Rabbi Rahmaan inoo sahal Ilaahay culayska dhamaanteen qof walba culays baa haysta Ilaahay culayska haysta Ilaahay ka dulqaad Ilaahay ummadda Soomaaliyeed miday oo qulubtooda isku keen Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umurul muslimina kullaha sahla Ilaahay dhamaanteen ba faraj qeyr qab Ilaahay inoo fur Ilaahay dhamaanteen ba gargaarkaaga kaalmadaadan u baahannahay ya Allah Ilaahay dhamaanteen ba inoo gargaar Ilaahay magacyada wanaagsan Allah la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma' al-husna Ilaahay waxaan kugu weydiisanaynaa
baryaynaa gargaarkaaga kaalmadaada ilaahay faraj qeyr qaba ilaahu inoo fur ilaahay umuuraha leenahay ya allah ilaahu si sahla ilaahu nagu saada umuuraha sahla ya allah ilaahu cid kale wax la weydiisto adiga in ma jirto ilaahay dhamaanteen umuuraha leenahay ilaahu inoo sahal oo ilaahu faraj qeyr qaba ilaahu inoo fur oo ilaahu dhamaanteen inoo kaalmay adaa kaalmada bixi ilaahu odan kaalmo ku weydiisanina ya allah cid kale kaalmo la weydiisto ma jirto ilaahu noo kaalmay ilaahu ummadda Soomaaliyeed u gargaar ilaahu inta xanuunsan xanuunka ka dulqaad ilaahu awlaadda inoo xifdi ilaahu inta awlaadoonkan ilaahu awlaad baari asi ilaahay rabbi raxmaan dhamaanteen inoo naxariiso ilaahu inta xanuunsan xanuunka ka dulqaad ya allah ilaahu xanuunka dulqaad caafimaad ugu bedel sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallim taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin